waad ogtihiin ummadihii naga horeeyey waxyaabo yar yaroo sidaa usii waaweyneyn marka ummadan maanta waxa ka dhex socda loo fiiriyo ayaa ummadaha dhan lagu baabiinay oo lagu halaagayay. qawmu Shucayb maxaa lagu halaagay? waxaa lagu halaagay wax kale maaha ganacsiga ayay maaragtaan rashi iyo khiyaano ayay dadka maaragtaan kula baayac mushtaraynayeen. hadday wax iibinayaanna si saxa oo hufan ugama iibinay, hadday wax iibsanayaanna mar walba si saxa waxba kuma iibsanayn baa layidhi. nuqsaantaas shirkiga waxaa u dheeraa baa layidhi, dembiga shirkiga u dheeraa wuxuu ahaa dembigaas inay bani aadankana ay khiyaamaan, ilaahayna way khiyaameeyeenoo ina shirka la dulmun cadiim. maadaama mushrikiin ay ahaayeenoo shajageed iyo kayn iyo dhir dhagax iyo qoryo ay caabudayeen ayaa layidhi kuwaas waina asxaaba alaykati la daalimiin baa ilaahay yidhi. shirkiga waxaa weliba iyakana u dheeraabaa layidhi ganacsiga, markay wax ganacsanayaan si daacada oo hufan oo cadaalad iyo ammaano ku salaysan kumay ganacsanayne khiyaanay ku ganacsanayeen, khiyaano khawana bay haayeen. baana ilaahay hal mar keliya ilaahay iyakana adduunka uu ka qabtay. haddana qowmu luud waad ogtihiin sida loo halaagay. maxaa lagu halaagay? iyakana waxaa lagu halaagay ficilkaasi adduunka la yimaadeen idan raggu maaragtaan ragga ay wax ka dayaan. saddexdii malag ee loo soo diray nebi ibraahim calayhi salaam ayay soo mareen. waxay u bishaareeyeen nebi ibraahim inay maaragtaan haajara ama saara inay wiil u dhalayso, wiil la yidhahda magaciisa yacquub, wa min waraai wiil la yidhahda magaciisa isxaaq, wa min waraai isxaaqa yacquub bay ku yidhahdeen. waa saddex malag oo suurad aadamiya loo soo yeelay ayaa ku soo hoyatay nebi ibraahim calayhi salaam. nebi ibraahimna khaasiyad wuxuu lahaa martiqaadku aada u jeclaa baa layidhio khasaaisha cajiibkee nebi ibraahim lagu ammaanay waxaa ka mid ahayd baa layidhi weligii cunto ma cunin ilaa marti uu raadsaduu la cuntayo mooyaane. markuu arkay saddex nin oo martiya ayuu u maleeyay bashar, xoolihiisii intuu ku noqday ayuu dibi yar oo markaa dhaylaa intuu soo gowracay ayuu uga soo dhigay maaragtaani xaniid ayuu uga soo dhigo uu la yimiday. markuu hordhigay buu ku yidhi maalakum laa maxaa la cuni laadihiin buu ku yidhi cunnada oo ay gacmihiinu la laaban yihiin, gacmihiina aad la duubateen. markaasay ku yidhaahdeen annaku ma nihin bashare, annaku waxaa nahay malaa'ig baa nahay, malaa'ig baa nahayoo waxaan u soconnaa laba shay, adigana bishaaraan kuu sidnaa bishaaro, oo bishaaradan kuu sidnaa waxa weeyaan waxaa ku dhalan doona wiil magaciisa la yidhahda isxaaq. isxaaq gadaashiisana waxaa ku xigi doonaa yacquub, oo isxaaqna wuxuu dhali doonaa yacquub. intuba waa wada nebiye weeyaan. isxaaqna waa nebi, yacquubna waa nebi. yacquub calayhi salaam wuxuu sii dhali doonaa nebi yuusuf calayhi salaam iyo 11 walaalihiiya. intaasi waa inta markaa nebiyada reer bani israa'iil oo dhan marka dambe ay ka soo bixi doonaan. lidaalika ibraahim waxaa lagu magacaabaa shajaratu alambiyaa, geedka ambiyada. ambiyada intooda badan oo dhan waxay ka farcameen nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam. hadduu aadam abulbashar ahaa baa la yidhi, ibraahim calayhi salaam isaguna wuxuu noqday abulambiyaa. haajarana waxay u dhashay ismaaciil, ismaaciil sulbigiisana waxaa ka soo baxay muxamed calayhi salaatu wasalaam. ana dacwatu abi ibraahim wa bishaaratu ciisa bnu maryam wara'at ummii xiina waladatnii nuuran kharaja minha fa adaa'a qusuura shaam. xadiidka nebigu sala allahu calayh wasalam waa kii lahaa anu ducadii aabbahay ibraahim baan ku imiday, ciisa calayhi salaamna waa isii sheegay imaadkayga. hooyadayna habeenkii aniga ay qaaday ama ii dhalaysay waxay aragtay buu nebigu yihi iftiin ka soo baxay oo adduunka qusuurtii ku taallay shaam iyo furus iyo ardulxabasha oo dhan ayuu nuurkaasi habeenkii gaadhay baa layidhi. ilaa adduunka dadkii gaalada ee boqorada ahaa ee ku noolaa dawaaqiidka ilaahay ka sokeeyey caabudayeen habeenka isbedel baa laga arkay. kuwii dabka caabudaya dabkii waxbaa habeenkaa waa u shidmi waayey. qolo walba waxay caabudaysa habeenka isbedel baa laga dareemay. ilaa ay u yeedheen faaleeyayaashii iyo saxaradii ay yidhaahdeen adduunka xalay maxaa ku soo kordhay bal noo sheega. ilaa ay yidhaahdaan waxaa dhashay xalay toole khaatamu lambiyaa baa xalay toole adduunka soo galay. imaamu lambiyaa sayidu waladi aadam calayhi salaatu wasalaam ayaa xalay toole dhashay oo adduunka ku soo biiray. lidaalika wax badan ba adduunka iska bedela baa lagu yidhi, waana isbedelaysaa caalamku khalaas u isbedelayaa.
marka nebi ibraahim calayhi salaam markan isxaaqna loo bishaaraynayo boqolka da-diisu kama yaro baa lidhi qiyaastii. xaaskiisii saara oo gadaashiisa fadhiday oo iyaduna 90 da-deedu ay tahay baa la yidhi ayaa xaggaa dambe ka hadasho way maqlaysaa bishaarada loo sheegayo laleeyahay wiil baa inii dhalan doona isxaaq layidhaha magaciisa. markaasay tidhi qaalat yaa waylata aalidu wa ana cajuuzun wa hada bacli shaykha ina hada la shayun cajiib qaluu atacjabiina min amri illah raxmat ullahi calaykum wabarakaatuhu ahla albeyt inahu xamiidun majiid. waxaa lagu yidhi ma amarka ilaahay baad la yaabtay aalidu wa ana cajuuzun bay tihi ma dhalayaa anoo islaantan gabowday ah oo odayguna uu yahay odaygan duqa ilaa xilligaana bilaa ilmo ayaa nahay oo ilmo ilaahay namaba siine oo da-daa waxaan ku soo gaarnay bilaa ubade ma dhalayaa. markaasuu loogu jawaabo lagu yidhi atacjabiina min amri illaah ma amarka ilaahay baad la yaabtaa lagu yidhi waa amar ilaahay weeyaane. marka horena ilmaha awlaadda ilaahay baa inaga hayay haddana ilaahay baa inii furay. soo doona yeela waa kuma waa allah tabaaraka wa tacaala. soo doona yeela waa ilaahay. marka horena isagaa inaga hayay haddana isagaa inii furay dee amarka isagaa iska leh. dakhtar ma aha dakhtar waxba ku siin maayo ka waxbixiyo waa ilaahay. awlaadda ilaahay baa bixiya. markaasay u sheegeen ay ku yidhaahdeen adiga bishaaradaa baan ku wadnaa qowmuluudna waan u soconaayo adduunkan ka soo qabanaynaa. laanna fasaad caalamka hortood aanan ka jirin bay ku soo kordhiyeen deedna waa amar baan qabnaa in adduunka laga gooyo qoladaas. xanuunka kansarka la yidhahdo walciyaadu billaah meesha uu qofka ka gaadho waa la gubaa baa la yidhah ma waa la gooyaa dawo kalama leh. maadaama xanuunka adduunka iyakuna ay ku soo kordhiyeen waa la goynayaa caalamka waa laga goynayaa. ummadihii naga horeeyey sidaasaa ilaahay ula tacaamulayay. 3 rusul luud bay ku soo hoydeen calayhi salaam. haweeneyda nebi luud uu qabayay ayaa gaalada hoosta kala shaqaynaysa oo maarataana khaa'inad ahayd. daraba allahu mathala liladiina kafaruu imra'ata nuuxin wa imra'ata luut kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahumaa falam yugniya canhumaa min allahi shay-a waqiila dkhula annaara maca adaakhiliin. labadaa nebi xaasaskooguba khiyaanay nebiyada kula joogeen. gaaladay hoosta kala shaqaynayeen labaduba hoostay uga dirtay baa layidhi fariin ay tiri rag baa soo hoyday soo dhaqsada. aqalka agagaarkiisi bayse soo dhoobeen. luudo waan ognahay rag inay ku yimaadeen noo soo saar baa lagu yihi waan rabnaaye. cajiib uu fadhiisan waayey nebi luud calayhi salaam. nin dhan oo martidiisii laleeyahay soo saar ka warrama oo haddana nebiya. low ana lii bikum quwa sooma dhihin aw aawi ilaa ruknin shadiid. laanna nebi luud degaankii uu deganaa maaha degmadiisii ma ahayn baa layidhi reerkiisu ma deganayn. maadaamuu qaraabo iyo qareen iyo ehel uu meesha uusan ku lahayn wuxuu yidhi hadda aan maanta tolkay aan dhex joogi lahaa sidaa maanta iyo lamaad dhaqanteen buu ku yidhi. soomaalidu tolka xagga adduunyada iyo qabyaalada iyo baadilka isku gargaarsataa. laakiin nabi luud calayhi salaam qabyaaladiisu waxay ahayd bimacnaa diinta ilaahay bay igula tacaawuni lahaayeenoo martidayda maaragtaane maad soo hunguriyeyseen buu yidhi waxaa inaad ula timaadaan laakiin waa cidlada waxaad igu arkaysaan. ilaa uu u gaadhay inuu yidhaahdo haulaai banaatii huna adharu lakum faataquu llaha walaa tukhzunii fii dayfi alaysa minkum rajulun rashiid. war waa martidaydii war miyaanad aqoon buu yihi martida qadarkayga miyaanad garanayn. nin caaqila oo caqlile oo wax fahmaya on la hadla muusan inagu jirin miyaa
وروح الرجع أذولو إيمان إنسان لو قمت تلقني رجع قبلها لو قلت تلقى أنا كان قبلها إلى هاي السيء قبلها يجور حلال أنتم نيجوري يك يا واحد لو قلت تلقى ولك عليه وحنا نيبسو لكن واحد الرجع لو قمت تلقني بكويري مروا بحا مروا صنع ولا وفريسون واي هل مركليا ملقي أسوء حجبا فريسي وكل يا لوط فريسو أنكم منهم بشر بالقول وحنا هاي ملايك إلى هاي صود ريبانه كون دبده جودان نوغا بقايسنا أياك أبو نص عنابا بلن كنا وابا صبحا بلن كوا قرنا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب بلن كنا وابا صبحا ساعد أن هاي سنة بين الدوك اللي قبطول لبابيو اللي ترترو وابا صلاة فجر وابا مركو بريو صبحنا كيد وميو نهين هذا الكوحة اللي فهم يا بمعنى هابينكي أو دن بيرجونا يريد النبي لطو جوجين سو صار تكوها يعني وقال كي سي أكتي سساو قد بيهين يسوون مرنا مرتدو وقلايو ومدرسيه ولا يرحل لايو وشيكا يا مرنا قولادن وتغايو وسكسا صباح أركان سنة صبح كدومونا نهين وعلى قول الردي بغرفة ديان صوماهن ها halka ka saar baa lagu yiri gabdhahaaga reerkaaga halka ka saar adiguna halka ka bax laakiin islaantaadu kuma jirto ha ogaata baa lagu yiri islaantaadu kuma jirto cidda badbaadaysa iyadu kuma jirto iyadu jamaacadan ay la socotaa baa lagu yiri qowm dhalimin kan ay la socotaa laana nidaamka qoomkan ay qaadatay iyadu banaat almuslimaat dumarka muslimaadkana waxaan leenahay hada dhaqankeena islaamka ee nabaraaya kala dambeynta iyo ismaqalka iyo istixtiraamka dhulkan gaalada markii la yimid dhaqankii laga tallaabsado oo dhaqanka dadkan ay sameysteen lagu tallaabsado ayakaad ka mid tahay ugu nabi islaam qabayba nabi lagu leeyahay haweeneydaada kulama socoto kuma jirtana cidda badbaadaysa ehelkaadana kamid ma haba lagu yiri iyadu jamaacadan dibadda joogtay la halaagaya la duubayo أي كمية هاي بالوجودي لأن قال له هوست كلا صعوتي ويان أعمال شودي رالك أهيد فعل كاحنا السمين أيام برالك أهيد بقى كيكو كل نغمان بيكون نغم يسيط نغم نودي بركة جماعة دا سيدو كمية هاي لذلك وقف اللي وقف بقى كدتك كلا أي سميستان هرمر انتو أركا بقى كيسي إسلام كقور صدا كوا هم قياما كمين نغنو قادا ردي أيك فدي مركا الباب كي نبي لو ما أدنى حقي دنيا كانوا كبحي بالليل قبل يزين أو صاري سجينا أو بحي إسلامتنا وكذا وبحدا الليل صدق دين ملك مركا بحين إسلامته على مركا علامة بوصة بس لا ده الرجل كل هذا حي وروا لقى بحي قبل كي سوق قاعدة ساسو جلسة الليل جلسة كي جلسة هل كي بيلها كوجوجية يدي كما صودا معلومة خلاص أياكي مركز صوت دبا أردين جبريل عليه السلام بعد كيس الله صوب بحيبا لو صدا كويري فطمسنا أعينهم واك قراك لها كل شيء أرجي ولا قاعدة أرجي ولا قاعدة ما بعرف يا ما وحبا وعقوبة ظهر رسالة النبال وحين شاء يمد المنكر كاحنا الشميع عين إن المرتدى ولد سجان يمد النبي اللي عريري كأبين كاودن كوهاي النبال ما كنا عبد ضد وين دي لقى قاعدة كورما حاجة كنا صعنا يعني ساسس كبير رجال بالسلاس هل مركل يا جبريل عليه السلام دولك انتو قال يا بات كيسي يقوي دول كده نابو قوي ده صمدو قوي كر انتو قاضي وعلى الدميرها يا ايده كل حنولي يا حيوانك كل حنولا عيدو دي الصوت فوق السماوات كان لها مغلب عليه خلق السماوات مغلب عليه يعني كر قاضي ده كر لو قاضي اوجد يهلق لقارسي روب نارنا سماوات لغا كاني وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل سماهين مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد عذاب كنوع عصبة إلى هاي ليه ظالمين تكمفقوا عند بالو عندها لغا قاضي والكالة لقوي
roob naara samada lagaga keenay dhagax wata welibana dhagax shidlays ulacays ayaa lagu baabiiyey waa la qallibo arladana waa laga qallibay say u dhannaayeen